maalin waxaan wanaagsan waxaan ka soo baxay jiman ka soo baxay waxaan u socdaa vlogan duubayay oo PRP. This is my second ingestion I'm doing for today. So maaragtay keena bidaarta la iska hagaajinaya PRP what means haddaa u baahantay Google garay insha Allah waxay qabato waxtarka ay leedahay PRP wana soo geliyay this second one. So let's go. I'm doing for second PRP. Yeah. Hey, don't move, please. Okay. Okay, I'm going. Okay. I'm going to put a little bit, not too much. Here. And then you have to move it a little bit again. Look, this will help you a little bit. Huh? This, okay? Okay. That help that did it. Okay. Doesn't feel, do you feel very, okay, I'm going. I feel it. Yeah, are you okay? Yeah, I feel it. Yeah. Waan soo dhameeyay waxa cadcadka u jeedaan waxa waaye waa kabaabisadii iyo maaragtay kareemka la ii mariyay waaye halkan u jeedaa cirbada la geliyay waaye halkaasna cirbadii halkaas la geliyay waaye waxaan cadka waxa waa kareem waaye marka oo lagu dhameeyo lagu marnaya oo maaragtay sida xanuunsan damba ku qaban PRP gan wuxuu aad ku ugu fiican yahay timaha durkaya ama timaha daadanaya oo maaragtay meeshii timaha ka guurayay maaragtay tinta ku soo celinaysa tintana way soo saaraysaa aniga xanuunkan waxaan isku arkay inay timaha iga daataan waagii oo aan jiraday 2019kii 2019kii oo aan jiraday oo aakhira la ii diray alxamdulillah aan ka soo laabtay madaxa dhulkan ku dhufsaday maaragtay timaha iga daateen oo dhibaato aad u far badan oo maaragtay waagaas igu dhacday alxamdulillah ilaahay baa mahadda leh mar walba waa la dhimanayaa aakhira loo socdaa lama haraayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo inta ambiyadii iyo inta ilaahay jeclaa oo dhan waa wada baxeen qof adduunka haraya ma jiro marka ilaahay wuxuu ku yiri dadaal anna waan kula jiraayaa marka mar walba dadaala cunto nafaqo leh cun dhulkeena hooyo wax walba yaala cunto nafaqo leh taala wax walba yaala marka insha Allah PRP gan wuxuu u wanaagsan yahay tinta u wanaagsan yahay la xiriir maxaan ku dhahaa dadka suubiyo neeraska suub sameeyaan su'aalo badan weydii hadaarisna maxaan ka dhahaa Google garay oo fiiri waxyaalaha ay u fiican tahay aniga waa markii labaad hadda aan sameynaya marka neeraska waxay ku dhahdaa waxa ku dhameeyay tiri saad 4 bilood ku dhameeyay dhahday insha Allah marka wixii jawaaba waa isla arki doonaa wax walba maaragtay waa lagu faa'iidaa waa lagu khasaaraa marka insha Allah inaan ku guuleysano insha Allah inaan ugu guuleysan Allah yaclam marka waxaan leeyahay waa ku maasantihiin sida maaragtay aad ula socotaan PRP maxay tartaa oo maxay caawisaa PRP waxay caawisaa tinta daadanaysa tinta maaragtay meesha ka nabaad guurayso
maaragtay bidaarta waxay soo gashaa bidaarta geesaha ma soo gasho bidaarta dhexda soo gashaa dhexda halkaas ay soo gashaa marka meesha oo maskaxda ku taalo waaye ayay bidaarta soo gashaa marka PRP waxay caawinaysaa timaha daadanaya timaha durkaaya maaragtay timaha moor ku noqonaya cirada aad ku far badan say sheegayeen waaye dhakhaatiirta ama nurse ka sameynaya ama kalkaaliyaha si loo yaqaan say sheegayeen waaye dad badan waxaan dhahayaa aniga xataa waan sameeyey cirada iga yareysay waxaa waaye waxaa la sameynayaa PRP waxaa waaye waxaa lagaa qaadayaa dhiigaaga hadii lagaa qaaday ayaa maalinta saddexaad oo maaragtay intii aan dhaqin hadda waxaan rabaa intii aan dhaqo marka waxaan leeyahay weydinkaasa PRP marka lagu sameeyo waxaa waaye 2 bir sugi kartaa 3 bir iska sugi marka hadda waxaan rabaa inaan ku dhaqo condition iyo shampoo oo maaragtay oo dabiici ah marka waxaan leeyahay like and share subscribe to my YouTube channel waxaan la jilaayo nabadgelyo bye